Xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa u magacaabay diblomaasiga Mareykanka ah James Swam inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan howlgalka xasilinta Qaramada Midoobay ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, taas oo ka dhigan inuu soo gabagabeeyay shaqadii uu ka hayay Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in James Swam uu hogaamin doono howlgalkan isagoo xilka kala wareegayo Peter Keith oo Qaramada Midoobay uga mahadcelisay shaqadii iyo dadaaladii uu ka soo qabtay hogaaminta howlgalkaasi. Magacaabistan ayaa sidoo kale ka dhigan in James Swam uu baneeyay xilkii uu ka hayay Soomaaliya, kaas oo tan iyo Maarso 2025 ka ahaa ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee Qaramada Midoobay iyo madaxa howlgalka kaalmada ku meel gaarka ah ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya. Sidoo kale, James Swam ayaa horey u soo hogaamiyay howlgalka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya intii u dhaxeysay sanadada 2019 ilaa 2022, xilli uu door weyn ka qaatay dadaallada beesha caalamka ee ku aadan xasilinta dalka iyo taageeridda geeddi-socodka dowlad-dhiska Soomaaliya, gaar ahaan xilliyo adag oo ay ka mid ahaayeen doorashooyinkii muranka badan dhaliyay ee sanadadii 2020 ilaa 2022. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka hadlay bixitaanka James Swam, isagoo sheegay inuu ahaa diblomaasi si hufan u hogaamiyay howlgallada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay. Waare ayaa tilmaamay in Swam uu door muhiim ah ka qaatay taageeridda beesha caalamka ee xasilinta iyo dhismaha dowladnimada Soomaaliya, isla markaana uu si gaar ah uga shaqeeyay xal u helidda caqabadaha siyaasadeed ee ka jira dalka. Ka tagista James Swam ee Soomaaliya xilligan oo muhiimka ahi waa khasaare weyn oo soo gaaraya dadaallada lagu xoojinayo dowladnimada dalka, balse dabeecaddiisa degan iyo rajadiisa aan xadka lahayn iyo xirfadiisa shaqo ee taxaddarka badan waxay faa'iido weyn u noqon doontaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, ayuu hadalka sii raaciyay Maxamed Cabdi Waare, madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabelle. James Swam ayaa ahaa ergey muhiim u ah kala dhexaadinta siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyadoo ay Qaramada Midoobay dhawaanba u soo magacaabi doonto ergey kale oo cusub. Ismaaciil Baro, Somali Cable, Muqdisho.